Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa waxaa si heer sare ah ugu soo dhaweeyay wasiirka ganacsiga, warshadaha iyo maalgashiga dalkaasi iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi. Madaxweynaha ayaa ka qayb gali doona shirka dalalka ku mideysan Dallada Bulshada Bariga Afrika isagoo kulan duceedyo ku aadan hirgelinta qorshaha dowladda Soomaaliya ee ka mid noqoshada dalladan la yeelan doona madaxda dalalka ku mideysan si uu ugu soo bandhigo faa'iidada ay Soomaaliya ay soo kordhinayso xubin ka noqoshada Soomaaliya ee dallada iyo guud ahaan fursadaha maalgashi iyo wax soo saarka dalkeena. Dallada Bulshada Bariga Afrika waxaa ku mideysan 7 dal oo uu ka dhaxeeyo hal baasaboor iyo suuq muhiim u ah gobolka, kuwaas oo kala ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Uganda iyo Tanzania. Si kastaba, safarkan ayaa noqonaya kii 6aad tan iyo markii la doortay, wuxuuna horey u booqday Imaaraadka, Turkiga, Eritrea, Kenya iyo Djibouti.